runtii maanta ay bishu tahay 10 bishii 8 2024 waxaanu halkan u joognaa inaanu daafurno mashruuca xushmaynta xalaasha ah ee hadiyad sanadeedka shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom 2024 ay ugu tala gashay macaamiisheeda. maanta halkan waxaan ku daafureynaa xarunta boqortooyada ee Qardho. gaariga aad u jeedaan ee halkaas ka muuqda sidoo kale isla maanta waxa lagu daafurayaa gaari la mid ah gaarigan xarunta Laascaanood. labadaas gaari shirkaddu waxay ugu tala gashay macaamiisheeda inay ku celiso. marka la yiraahdo xushmaynta xalaasha ah waxa ku soo dhacaysa maskaxdaada macnaha magacaasa uu leeyahay. waxaan ugu tala galnay qodobka koowaad macaamiisha inaan ku celinno abaalmarintan iyadoo aan loo fiirin macaamiishii hore, macaamiishii dhexe, macaamiisha dambe, iyagoo aan loo fiirin wax ku subashadoodii, iyagoo aan la oranayn hadda dalbo oo lacag ku shubo 25 senti 50 senti, iyadoo aan la oranayn baasi free ah waxa lagu siinayaa macaamiisha shirkadda Golis laba gaari oo kala yaala magaalada Qardho iyo magaalada Laascaanood. macaamiishu marka ay dalbanayso si ay uga qayb gasho barnaamijkan tijaabi nasiibkaaga ah ee xushmaynta xalaasha ah waxa ay dirayaan fariin qoraaleed. waxay tagayaan mobilkooda, waxay la soo baxayaan meesha ay fariinta ku qoraan, waxay u dirayaan lambarka gaaban ee ah 2299 2299 ayay wuxuu dirayaan fariin qoraaleed. fariintaas qofka uu diraayo qofku waxa uu rabo qori karaa. Golis baa qori kadhaa, magacaaga qori kadhaa, wan baa taaban kartaa, yacni hal xaraf baa gelin kartaa, ee baa gelin kartaa kaliya. waa inay fariintaas ka baxdaa. fariintu markay ka baxdo waxa ku soo laabanaysa message ah waxa iska diiwaan gelisay barnaamijka tijaabi nasiibkaaga. haddii aad qofkii isku dayo mar labaad inuu waxa weeye hubiyo barnaamijka waxa u soo laabanaysa fariin ah sug waxaad ka mid tahay dadkii horay isu diiwaan geliyay ilaa inta lagu dhawaaqi doono xafladda sug. maanta bishu waa 10 waxaan u daafuri doonaa in loo tartamo gaariga yaala magaalada Qardho. marka la bixiyo gaariga yaala magaalada Qardho kadib ayaa la bilaabi doonaa in loo tartamo gaariga yaala isla maanta la magaalada Laascaanood. waxa hormari doona gaariga yaala magaalada Qardho. 7 bari oo maanta ka bilaabanaysa ayuu barnaamijka soconaya. 17 bisha habeenimada 6 saac markay tahay ayuu soo xirmaaya barnaamijkaas. maalin waa la nasan doonaa ka bacdi madal Qardho u dhantahay oo dad badan ay goobjoog ka yihiin ayaa la isugu yeeri doona dadka reer Qardhood si loo bixiyo gaarigaas cidda ku guuleysata. madasha dadka jooga qof ka mid ah ayaana soo saari doona qofka ku guuleysan doona barnaamijkaas. taas waa qodobka koowaad oo aan rabno inaan la wadaagno macaamiisheeda. qodobka labaad waxa weeye dadku wax badan bay waxay yiraahdaan barnaamijkan arma shirkadu lacag ka sameynaysa. shirkadu wax lacag barnaamijkan kama sameynayso. fariinta ay dadku dirayaan waa zero charge. wax lacag oo ka go'aysa ma leh waa zero. xataa hadduu kaarku uu lacag la'aan yahay fariintu waa ka baxaysa. waxay shirkadu ugu tala gashay inaysan wax lacag ka samayn tijaabada nasiibkaaga ee halka taalla. sababtoo haddii aanu lacag ka samayno oo xataa fariinta diraysa lacag niraano waxaan awoodnaa inaanu helno gaariga iyo 10 gaar oo kale lacagtoodii mar ma helayno ma rabno. fariinta sida loo diraayo waa ku celiyay 229 baa loo dirayaa fariin qoraaleed waxay aragtoo ku qoran tahay. qodobka saddexaad waxa weeye macaamiishu shakiyaysan gelin cidda qaadan doonta. shirkadda shaqaalaheeda iyo howlwadeennada shirkaddu ka mid ma aha dadka qaadan doona gaarigan ama ku guuleysan doona. waxay u furantahay oo kaliya waa macaamiisha shirkadda Golis. qof macmiil ah ayaa gaariga heli doona. gaarigaasna waxa lagu heli doona waa nasiib. laakiin number qofka nasiibkiisu saacido magaaladu rabaa ka joogo dalka, magaaladu rabaa ka joogo, tuuladu rabaa ka joogo, dacdu rabaa hal leekaado, labiyo dhadi ku rabaa han noqdo, mii magaalo ha joogo gaariga nasiibkiisu siiyo ayaa heli doona insha Allah. qodobka ugu dambaysa waxa weeye shirkadu diyaar waxay u tahay inay macaamiisheeda la qaybsato farxadaha.
waxay diyaar u tahay macaamiisheeda in wax ku soo celiso oo dib ugu soo celiso waxaan rajaynaynaa insha Allah bisha 19keeda inaan qarno ku qaban doono barnaamijkan gabagabadiisa kabacdina loo tartami doono xafladda ka dhici doonta magaalada Laascaanood waxaan rajaynayaa qof walba inuu tijaabiyo nasiibkiisa soo dalbado 229 u soo diro fariin kadib insha Allah madasha uu sugo 7 Abriil ay socoto macmiilka kaar 2 kaar inta uu hayso loo ogoliye kaararka ay hayso dhan ka gal oo ka soo dirso dhammaantiin aad baan mar labaad idinku mahad celinayaa